Waxaa jiray dagaalo badan oo waaweyn taariikhda adduunka ka dhacay, kuwaas oo socday sanado badan. Bal hadda u fiirso dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka, kaasi oo socday 4 sano iyo 6 sano, siday u kala horeeyeen. Laakiin sidoo kale waxaa jira dagaal taariikhda ah oo socday 38 daqiiqo kaliya, kaasi oo loo aqoonsaday dagaalkii ugu gaabnaa taariikhda. Fadlan inta aynan muuqaalka bilaabin, nagu soo biirataada nagu soo biiran oo calaamadda subscribe taabo. Si aad ula socotid muuqaal kasta oo soo dhignana kambalelka furo muuqaalkana ha ilaawin inaad like-ta aad ku casuuntid. dagaalkan waxaa wada galay England iyo Zanzibar, boqortooyadii Zanzibar. Zanzibar waa jasiirado, haddana waa qayb ka mid ah ismaamul goboleedyada Tansaaniya. Waxay ahayd 1890 markii ay Zanzibar saxiixday heshiis dhexmaray Ingiriiska iyo Jarmalka. Heshiiskani wuxuu Ingiriiska siiyay xukunka Zanzibar, halka inta badan Tansaaniya ay aadeen Jarmalka. Heshiiska kadib Ingiriisku wuxuu mas'uuliyadda daryeelka Zanzibar ku wareejiyay Xamed bin Thawani. intaas kadib Thawani wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay suldaan. Xamed bin Thawani wuxuu xukumay Zanzibar si nabadgelyo leh, mas'uuliyad leh muddo 3 sano ah, 1893 ilaa 1896. Laakiinse wuxuu dhintay 25 Agoosto 1896. Intaas kadib Thawani in adeerkiis Khalid bin Bargash wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay suldaanka Zanzibar. waxaa sidoo kale la sheegay in Khalid uu dilay Xamed bin Thawani isaga oo ku sameeyay inuu xukunka qabsado. Haddii ay Britain xaq u lahayd Zanzibar, Khalid bin Bargash wuxuu la wareegay awoodda Zanzibar isagoo aan fasax ka haysan Britain. Intaas kadib Ingiriisku waxa ay ku amartay Khalid in uu ka dego jagada suldaanka, laakiin Khalid ayaa dhagaha ka xirtay amarkooda. Khalid wuxuu sameeyay laga soo bilaabo xagga sare ee qasriga, wuxuu geeyay qiyaastii 3,000 oo askari si ay u ilaaliyaan naftiisa iyo qasriga. Markii ay Britain ogaatay arrintan, waxay mar kale ka codsatay Khalid inuu ka dogo jagada sultaannimo, laakiin Khalid wuu ka diiday arrintaas. Hadda Ingiriiska waxa uu hadhay hal wado oo kaliya oo Zanzibar gacantooda ku soo celin karta, waana inuu dagaal ku qaado Zanzibar. Sidaas darteed Ingiriisku wuxuu diray ciidamadiisa badda inay weeraraan Zanzibar, iyagoo diyaarin iyo istaraatiijiyad dhammaystiran leh. Subaxnimadii 27 Agoosto 1896 ciidamada badda ee Ingiriiska waxay bilaabeen duqeyn iyo burburin qasriga Zanzibar maraakiibtooda ah. Xabad joojin ayaa lagu dhawaaqay 38 daqiiqo kadib. Dagaalkuna wuxuu ku dhamaaday halkaasi. Waxaa loo arkay inuu yahay dagaalkii ugu gaabnaa taariikhda. Zanzibar waxaa laga xoreeyay Ingiriiska bishii Diseembar 1963, laakiin gacan dhiig daatay ayaa ka dhacay bil kadib. waxaa la sheegaa in kumanaan Carab iyo Hindi ah lagu dilay kacaankaas, kumanaanna laga saaray Zanzibar. taas kadib Jamhuuriyadda Zanzibar iyo Pemba ayaa la aasaasay. tan jamhuuriyadda ayaa lagu daray Tanganyika, kadibna Jamhuuriyadaha Midoobay ee Tanganyika iyo Zanzibar waxay u bixiyeen Jamhuuriyadaha Midoobay ee Tansaaniya. inkastoo ay Zanzibar tahay maamul hoosaad ka tirsan Tansaaniya, haddana halkan waxaa ka jirta dawlad gooni ah oo loo yaqaan dawladdii kacaanka ee Zanzibar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. muuqaalkiina maanta intaa bandhigayga yahay. falna haddii aad qiimeynayso tacabka ku baxay muuqaalka, like halka ilmaamin inaad nagu soo birto ood ka mid noqotid daaweynta nagu xidhan oo taabatida calaamadda subscribe-ta, hana ilaawin inaad furato kambalelka. nabadgelyo.